halkaad nagala socotaana waa London. Soomaaliyana guddiga xulidda xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa guddigaasi waxa uu beeninayaa oo sheegay in aysan wax isaga ka yimid ahayn liis soo baxay oo ay ku qoran yihiin magacyo xildhibaano oo warbaahinta gudaha ay daabaceen hase ahaatee guddigu waxa uu ku adkeysanaya maanta inuu soo saarayo xubnaha cusub ee baarlamaanka ee dhabta ah walow ay jiraan beelo wali aan ku heshinin xubnihii laga sugayay inay soo gudbiyaan. haddaba wariyaha BBC Ibrahim Maxamed Aadan oo aan telefoonka kula hadlay ayaa waxa aan weydiiyay bal in uu tafaasiil laga siiyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha xildhibaanada iyo xaaladda xulitaanku halka ay marayso. Cabdi Nuur, guddiga farsamada ee soo xulidda baarlamaanka cusub ilaa hadda muusan shaacin liiskii saxda ahaa ee xildhibaanada cusub ee baarlamaanka. waxaa la filayay in xalay waqti dambe ay ku dhawaaqaan liiska inta ay gacanta ku hayaan xildhibaano la doonaya inay qaataan kaararka aqoonsiga isla markaana la dhaariyo. waxaa jirta liisas internetyada lagu baahinayay hayeeshee markaan la hadalnay guddiga farsamadu waxay noo sheegeen inaysan jirin ilaa hadda iyaga liis rasmi ah oo kasoo baxay. waxayna sheegeen in saacadaha soo socda ay ku dhawaaqi doonaan liiska inta badan ee xildhibaanada baarlamaanka cusub ee yeelanaysa Soomaaliya. waxay sheegeen in inta badan xildhibaanada hadda ay gacanta ku hayaan inta badan 200 oo xildhibaan inay hadda diyaar yihiin in ay qaataan kaararka aqoonsiga isla markaana la dhaariyo. marka waxay sheegeen in saacadaha hore ee maanta ay ku dhawaaqi doonaan liiska xildhibaanada cusub ee Soomaaliya. marka la fiiriyo habka guddigu wax u maamulayo maxaad isleedahay way hor taagan yihiin ama iyaguba laga yaabaa inay sheegaan dhamaystirka xubnahan baarlamaanka soo gelaya marka la fiiriyo isniinta oo ah waqtiga kama dambaysta ahaa oo iyaduna hadda aan saasba u fogeyn. Cabdi Nuur, sida aad ka warhayso shalay idaacadaheennina ku baxaysay madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka ah Shariif Sheekh Axmed iyo wakiilka gaarka xogeyaha guud Agustin Mahiga oo shir ku qabtay magaalada Muqdisho waxay sheegeen in guddiga farsamada aanay xaq u lahayn inay soo celiyaan xubno iyagoo ay si gaara ugu soo celiyeen kriteeriyadii ama shuruudihii looga baahnaa xildhibaannimada inay buuxin waayaan. waxay sheegeen inaysan taasi sax ahayn. marka waxaa muuqata in guddiga cadaadis badani uu haysto. waxaa jira murano weli beelihii ka dhexeeya oo beelaha qaar ay weli ku haystaan xildhibaanadii baarlamaanka uga mid noqon lahaa. marka waxyaabahaas oo dhan isu geysa cadaadiska ka imaanaya siyaasiyiinta iyo muranka iyo khilaafyada beelaha waxaad arkaysaa guddiga culayska weyn ee ka haysta arrintan. laakiin waxay sheegayaan in ugu dambeyn maanta uu soo bixi doono liiska isla markaana saacadaha soo socda ay suuragal tahay in la dhaariyo xildhibaanada cusub si meesha looga saaro marnaanshiyo xagga awoodda ah inaysan dhicin maalinta isniinta ah oo ay ku eg tahay waqtiga dowladda ku-meel gaarka ah. aad buu mahadsan yahay kaasi waxa waa Ibrahim oo qadka telefoonka ugu waramayay Cabdi Nuur isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.